dadka isku qalma haddii ay isguursadaan waa arrin caadi ah oo dadka ay arki jireen. waxaa la yaab leh in indhaha dadka iyo warbaahintaba ay soo jiidato waa markuu guurkoodu dhaco dad aan isku qalmin dhanka da'da. ayaan ka hadlaynaa muuqaalkan waxaan ku daawan doontaan haweeney Afrikaan ah oo 29 jir ah ayaa waxay guursatay oday caddaan ah oo 92 jir ah. gabadhan 29 jirka ah ee ka soo jeedo dalka Zambia ayaa guursatay oday caddaan ah oo 92 jir ah. odaygan ayaa la sheegay in uu yahay maalqabeen. dhacdadan ayay ka xumaadeen dad badan oo Afrikaan ah waxa ay samaysay gabadhooda. guurkan ayay Soomaalidu waxay u yaqaanaan guur danaysi. guurka danaysigu waxa weeye haweeneyda in ay guursato nin 2 jeer dhali kara ama ninka uu guursado haween 1 jeer dhali karta. danta laga leeyahayna waa in lacag ama dhaqaalo la helaa. waxa kale oo jira guur kale oo isagana hoos galaya guurka dhaqaalaha ku dhisan. hadda waxay noqonayaan ragga qaar badan oo ka mid ah guurka ma haweystaan mana ku hamiyaan ilaa inta ay lacag ka helayaan. guurkiisuna wuxuu ku xiran yahay oo keliya in uu dhaqaale helo. maalinta uu arko in uu gacanta uu wax ay ugu jiraan ayuu gabar guursadaa. waxba ku qaadan mayso kadibna waxay ishelayaan gabar dhaqaale ku soo raacday balse aan dan kale aan ka lahayn. halkaasina waxaa ku abuurma guri dhaqaale ku dhisan. haddaba iyada oo ay fiican tahay in dhaqaaluhu uu yahay lafdhabarta qoyska la dhisayo ayaa haddana waxaa meeshii soo gelaya in uu ninkaasi uu u meel dayan habkii iyo sidii uu ugu fikri lahaa gabadha uu guursanayo. waayo gurkiisu waxa uu ku xiran yahay dhaqaale. dhaqaalahaasina haddii uu ka baxo waxaa suurtagal ah in uu reerkii uu burburo. ileen waxa keliya oo reerku isku hayay waa lacag uune. gabadhan reer Zambia ah oo lagu magacaabo Charity Mumba ayaa la hooyanaysa odaygan 92 jirka ah. isagana wuxuu ka soo jeedaa South Africaanka caddaanka waxaana lagu magacaabaa Bete Grovers. waxaa la sheegay in uu yahay taajir isnacay. kadib arooskan sawiradooda markii lagu arkay baraha bulshada ayay dad badan ka argagaxeen waxa ay ku dhaqaaqday gabadhan waxayna soo jeediyeen in ay tahay mid sharafteeda ku ciyaartay. guurka dadka aan isku da'da ahayn ayaa dhibaato laga dhaxlaa oo ay ka mid tahay tarbiyada carruurta oo hoos u dhacda. ruuxa da'da weyn hadday haweenay tahayna waxaa laga dhaxlaa carruur la'aan. dood laga sii daayay warbaahinta ayaa gabdhaha Zambiyaanka ah waxa ay tilmaameen in gabadhan ay ceebaysay dhammaan gabdhaha Zambia maadaama bay yiraahdeen oday da'daas ah ay raashin la cunayso halka ragga South Africaanka ay ku baaqeen gabadhan Zambiyaanka ah in waddankeeda qashinka ah dib loogu celiyo sida ay hadalka u dhigeen. qoraal Zambiyaan ah oo arrintan wax ka qoray ayaa qoraalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyey in ay ceeb tahay dumarka sanadahan dambe inay aqoon sida loo shaqaysto oo ay shaqo ka dhigteen waayeel guursi.